xanuunka coronavirus ayaa mid meelo badan oo dunida ku faafaya iyadoo ay sii kordhayaan dadka uu ku dhacayo xanuunkaasi. cabdulaahi xaashi aadan waa soomaali ku nool dalkaasi norway kaasi oo uu ku dhacay xanuunkaasi, waxaana sidaa xanuunka ugu dhacay waxa uu dareemay iyo weliba xaaladiisu sida ay tahay haatan uu uga warramay Jaafar Kukay. taariikhdu kolkay ahayd 28 bishii February ayaa waxaan u safray wadanka la yiraahdo Jarmalka. sida caadadu tahay waxaan raacay doon soo adeeganay iyo xaaskii iyo gabar yar oo aan dhalay ayaan wada soconay, laakiin waagi kulku bariyay shaqaan lahaa. aroortii kolkaan salaas wax tukaday shaqadii waan aadi waayay. waxaan dareemay xanuun jirka ah. marka waxay tahay aan garan waayay xanuunku. waliba waxaan la soo kacay xanuun lafaha ay xanuunay, cunahana aad buu i xanuunayay, madax xanuun aad saayid waana u hayay, qandhana way haysay, matagna way haysay. shakigana way igu jiray. waxaan siri baalku uu jooga magaalada joogotiin dadku dhan way og yihiin inuu magaalada joogo. marka waxaan siri waxba ha degdegin, kuwii shaqada message u dir, maanta sidaan shaqa kuma tegi kartid. message baan u qoray. markaas wuu ii soo qoray, wuxuu yidhi maya guriga joog, xanuunkii igu soo batay waana qarqaraya. anuu markaa gude maalina way tahay bustaan ku dhex jira waana sii qarqaraya. anigu dhan waxaad moodaa inaan dhaxamoonay -10 degree inaan ku dhex jira aad moodaysa, ilkahaas ku lufanayay. waa soo koobaynaa, dhaqaatiirtaadii baad la xiriirtay oo aad la hadashay markii la xaqiijiyey inaad qabto xanuunkan wixii ka dambeeyey. adigu maxaad dareentay markaa? cabsi xoog ma kusoo wajahday? ma wax iska caadi baad u arkaysay? wallahi horta qof mu'min ah oo ilaahay rumaysanna waan ahay. waxaan aaminsanahay xadiiskii nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ahaa, wixii kugu dhacay macnaha kuma gafi lahayn qasab kugu dhici lahaa. way maxaa isi soo taray marka intaa wixii ka dambeeyey? maxaa soo kordhay oo ku soo kordhay xaaladaada? wallahi xaaladda waxaa ku soo kordhay horta xanuun ana weligay intaan noolaa, nin kulli 40 kan hadda ku dhowdhowahay, weligay xanuun noocan ma arag. malaria way igu dhacday afrikaan oo joogo, pneumonia xanuunada la yiraahdo way igu dhaceen. xanuuno fara badan waan arkay oo kala duwan, cagaarshowga kan la yiraahdo, laakiin xanuunkan oo kale ma arag, qandhadiisa lamida ma arag. sababta tahay aniga oo dhan waan gariiray, waana istaagi waayay, waana dhaxan baan dareemayay, waana adduunkii oo dhan baa nooc kale la noqday, dhadhankii iga xumaaday, xumad aad u fara badan, dhididna way iga socda, waana dhaxmoonaya. marka iyada de xanuunku marka phase 1 buu ku jiray, kulli jirka la dagaalamayay, laakiin xumad aad u fara badan bay ahayd. markaas dhakhtarku wuxuu igu la taliyay inaan cuno paracetamol iyo panadol, qofkii wuxuu kullu yaqaano. paracetamolka marka waxaan cunay 1 gram kiniini ah, macna 500 miligram iyo 500 miligram ah. markaas xogaa yar xumad jibin yar buu isin jiray, xogaan ku nafisay macnaha ma fahanti. ma lagu karantiilay adiga oo meel gooni miyaa lagu geliyay mise waxaa lagu yiri gurigaaga isku karantiil? guriga isku karantiil lagu yiri, xaafad waraaq bay laanta caafimaadka ii soo dirtay. waxaa lagu yiri xaaladaada waan la soconaa, kama soo bixi kartid gurigaaga 14 maalmood. waa gartay. marka dadka guriga kugula noolna waxaad ii sheegtay in xaaskaaga iyo gabar yar oo aad dhashay ay joogto. xaaskuna uu ku dhacay, kolley uu ku dhacay, laakiin gabadha yarta dhakhtarku waan weydiiyey, wuxuu yidhi ilmaha eber ilaa 9 waxba ma yeelay. ilaa 9 jir. marka iyada waxba kamadan dareemin ilaa ay hadda. iyaroo duufduufa mooye way iska ciyaaraysaa, sidai ay u ciyaaraysan bay u ciyaaraysaa. waxayba leedahay gurigan maxaad noogu xidheen oo waan bixi lahayn. soomaalida marka loo sheega xanuunkan amaba idaacadaha ka maqlaan, warbaahinta ka dhegaystaan ama ka daawadaan, waxaad moodaa cabsi xoog leh in ay qabaan. wadamada hadda annaga aan joogno kale dadkii aad bay u baqayaan. maadaama adigu aad wixii tijaabisay oo xanuunkii uu kugu dhacay oo aad soo aragtay, maxaad u sheegi kartaa dadka ku dhagaysanaya? waxaanay maxay yihiin? horta xanuunku xanuunada kale uu la mid yahay kuwa malaariyada, iyo haddii loo fiiriyo xanuunada hadda kale aad ka sheekeynaysid, yaaba inta badan geeridu dadka badan ku dhintaan. inkasta geeridu ilaahay keena, laakiin sabab uga dhigaa. xanuunkana dee xanuunadaas kolley kama duwano. cabsida iyo xoogaa mediaga ay dadku cabsida geliyeen, dadku ma garatay xanuunada hadda Afrika ku dhaca daacunka oo kale waa uu lamid yahay, ma garatay. dadku Soomaalida meel kasta ay joogaan waxaan kula talin lahaa in xanuunkan uu igu dhacay, haddana waan ka soo kabsaday, walillaahi alxamdu wal minna. haddaad xanuunka dareento inuu ku haayo, waxoogaa hergebaysan tahay, dareento lafa inuu ku xanuunayo, hadda wixii aan soo sheegay, gurigaaga joog, dadka ha haligin, masaajidka xataa ha tegin, dadka ha galabsanin. guriga 14 maalmood ani hadda waxaan qiyaasay, waxaan arkay 7 maalmood markay ii dhamaatay yaan ka soo fiicnaaday. marka dhaqaatiirtu ma xaqiijiyeen oo ma confirm gareeyeen in aad ka bogsatay mise weli waxba kugu sii dambeeya oo karantiilkii waad ku jirtaa? karantiinka waan ku jiraa. dhakhtarku wuxuu igu yiri 7 maalmood hore uu igu yiri, maalintii kood wuxuu yiri ilaa 7 maalmood buu ku hayni, qandhada ku haynaysaa, kolba banadolka cun, 7 maalmood ka dhamaad maalintii 8aad way soo yaraanaysaa, laakiin guriga kama bixi kartid ilaa 14 maalmood ay dhamaato. marka 14ka maalmood macnaheedu waxay ka dhigan tahay qof kuma daarin kartid.
dawooyinka iyo waxyaabaha aad isticmaashayna waxay ku koobnaayeen oo keliya uun barastamoolkaas ama qandhajabiyahaas bay ku koobnaayeen wax kale dhaqaatiirtu kumaanay qorin may sababta tahay dhakhtarka wuxuu igu yidhi anigu lafteedu waxaan u malaynaya in lagu daaweyn karo antibiotic wuxuu igu yidhi si fiican buu igu sharxay wuxuu yidhi antibiotica waxaa lagu daaweeyaa cudurka markuu bacteria yahay cudurkan waa viruskuna in vaccine loo isticmaalo ama duritaan cirbad loo sameeyo talaal mooye laguma isticmaali karo antibiotic marka Soomaaliya meel kasta ay joogto dad Soomaaliya joogto walaalayaal intaad aad tagto meeshii la dhihi jiray farmashiga hadii antibiotic si aan ku daaweeyo cudurkan antibiotic kuma daawoobayso waxba jirkaaga ha kharibin waxay u baahan tahay bas cabitaan fara badan inaad cabto paracetamolna aad waa Cabdullaahi ugu dambeyntii dadka qaarkood wuxuu uga dhacaa sanbabada buu u degaa mararka qaar neef mareenka buu xanuunkan si toos ugu dhacaa adigu qufac iyo neefta oo ku dhibta iyo xabad xanuun ma dareentay niyo maalintii koowaad waan dareemay in yar oo qufac ah iyo maxaan ku yiraahdaa sanbabada oo xoogaa aad moodo neefta inay igu dhigayso waan dareemay kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Xaashi Aadan oo Soomaali ah ku nool dalkaasi Norway oo ku dhacay xanuunka coronavirus